weligaa ma isweydiisay qaabka ay dadku edit gareeyaan muuqaalada halka daqiiqo iyo ka badan bah weliba iyagoo isticmaalaya platformka CapCut. Maanta waxaan ka hadli doonaa qaabka loo edit gareeyo muuqaalada noocaas ah ama haddii aad ka shaqeynayso aad lacag badan uga sameyn lahayd maadaama editkaagu uu yahay top level. Kaliya adigoo adeegsanaya taleefankaaga ama laptopkaaga. Muuqaalkan u jarjar qaabkaan u jarjarayo intaad editkiisa bilaabin. Bal haan bilowno. walaalo badan oo isticmaalaan CapCut-ka ayaa waxay dhaheen oo qabo challenge dhexdeena aan isku challenge gareeno editing-ka ah. Hadaba waxaan qabsan doonaa waxay tahay challenge-yaasi wuxuu noqon doonaa waxay tahay waxa laga fiiri doonaa arrimahan. Yaasi wuxuu noqon doonaa waxay tahay waxa laga fiiri doonaa arrimahan. Sound effects ka, music backgrounds ka, text animation ka, iyo weliba text animation ka iyo weliba waxa laga fiiri doonaa waxay tahay quality muuqaalkaaga uu leeyahay. intaasi marka aad gudubtid waxaa noqon doontaa waxay tahay guuleystaha. haddaba sida aad guuleystaha u noqotid muuqaal ayaa soo edit gareynaysaa. muuqaalkaasi waxaa laga fiiri doonaa waxa ay tahay masaxan yahay masuu qaldan yahay qaabka aad usoo samayso. xitaa waxaad u adeegsan kartaa waxa ay tahay editing-ka ay tahay editing-ka muuqaalkaani asigoo qaleel wax kusoo marka intaan ayaan u baahannahay. marka qaybtan dambe naga delete gareey kuwan ay editing ku sameynayna. marka waxaad u imaanaysaa qaybta ugu horeyso animation dooro. waxaad kasii dooranaysaa animation-kan waxaadna geynaysaa 0.3s. qaybta labaad mask dooro. qaybtan kasii dooro falartan hoogaa hoos soo celi bular ku furo madow ah. aad overlay tag soo qaado green screen-kan. markaa soo qaadato tag remove background halka ay qoran tahay chroma key kasii dooro green screen-kan ka tirtir. tiradan waxaad geynaysaa 47. marka loogada CapCut-ka yareey kadibna waxaad dhigaysaa halkan. marka loogada CapCut-ka muuqaalka oo la ekeysi hore u soo celi kadibna waxaad ku sameynaysaa keyframe oo qabanaysaa keyframe-kood dhinacan geli midka labaad banaanka u soo saaro position-kiisa dhig. sida kuu muuqata soo bixitaanka loogada CapCut-ka hoogaa daahitaan ayaa ku jira. marka arrinkaas si aan u habeeno halka ay qoran tahay tag graph kadibna waxaad kasii dooranaysaa graphkan. qaybta labaad u imaaw keyframe ku qabo. keyframe-ka koowaad ka fogo midka labaad muuqaalka zoom soo dheh kadibna hoos u soo celi. marka intaad samayso overlay tag kadibna waxaad soo qaadanaysaa labadan icon. marka aad soo qaadato labada icon saa u jeedid iconadan cabirkooda ma saxna oo iskuma aadana waa ay kala jeedaan. marka si aan u saxno waxaad tagaysaa transfer halka ay qoran tahay kadibna waxaad kasii dooranaysaa qaybtan. saa u jeedid cabirkiisa waa uu noo saxmay. midka labaad is wadadan ku sameey. marka intaad samayso iconada waxaad dhigaysaa qofka madaxiisa kore kadibna qaybta ugu horeyso keyframe qabo. keyframe-ka koowaad waxaad gelinaysaa dhinacan hoogaa waa ka fogaanaysaa. keyframe-ka labaad banaanka usoo saaraysaa. midka labaad is wadadaas ayaa ku sameynaysaa. marka iconada marka ay dhinacyada kasoo baxayaan centerka ha iskugu imaadaan midna yuusan dhinac u badnaanin. waxaadnu edit gareynaysaa like this qaabkan aan u sameynaya. soo bixitaankooda zero professional si aan ugu dhigno keyframe-ada halkooda tag kadib qaybta graph dooro. labada position graphkan ku wada dar. marka intaad samayso iska soo jar labadan icon kadibna soo yareey. kadibna waxaad u imaanaysaa muuqaal keyframe ku qabanaysaa. keyframe koowaad ka fogaanaysaa. keyframe-ka labaad muuqaalka zoomti ayaa ka saaraysaa gadaal ayaa u celinaysaa. qaybtan keyframe-kan aan u isticmaalnayn waxaad ku daraysaa isla graafkii. marka waxaad u imaanaysaa qaybtan kale waxaad halkan ka raadinaysaa halka ay qoran tahay mask kadibna waxaad kasii dooranaysaa qaybtan. marka madowga hoogaa hoos u soo celi kadibna qaybtan bularka shucaha hoogaa ku fur. marka intaad samayso overlay tag kadibna waxaad soo qaadanaysaa icon-kan remove bg tag kadibna waxaad kasii dooranaysaa qaybtan si aan ugu tirtirno background-ka oo gadaalka leeyahay.
marka aad ka tirtirto hoogaa yaray waxaadna dhigaysaa qaybtii madowga aan ku furnay. Marka aad iconka soo qaadato isku aadi iconka iyo qaybtan aad gareynayso kadibna keyframe ku qabanaysaa dhinacan ayaa gelinaysaa keyframe-ka labaad waa soo saaraysaa waxaadna dhigaysaa centerka. Qaybtan iska soo jar leekaysi muuqaalka kale jiritaankiisa halka uu ku egyahay. qaybtan kala dooro kadibna waxaad tagaysaa animation halka ay qoran tahay animation-kan ka sii dooro. waxaan qabsan doonaa waxa ay tahay challenge marka uu leeyahay halkan ku jar kadibna qaybtan waxaan ku daraynaa qoraal. marka qaybta fontiska tag qoraalkaaga ku qoro kadibna soo habayso farta aad jeceshahay soo saaro kadibna waxaad u imaanaysaa halka ay qoran tahay animation waxaadna ku daraysaa animation-kan. haddaba waxaan qabsan doonaa waxay tahay challenge-gaas wuxuu noqon doonaa waxay tahay qaybtan kale challenge-gaas waxa uu noqon doonaa uu leeyahay iyadana waxaan ku daraynaa isa tagiska qaybta tagiska tag fontiska aad jeceshahay soo saaro colorkiisa soo habayso kadibna animation halka ay qoran tahay tag iyadana isa animation-kii midii kale aan ku daraynay ku dar oo editing-ka ah. haddaba waxaan qabsan doonaa waxay tahay challenge-gaas wuxuu noqon doonaa waxay tahay waxaa laga fiirin doonaa arrimahan. marka uu leeyahay waxaa laga fiirin doonaa arrimahan waxaan ku soo darsan doonaa fine glass-kan. si aan fine glass-kan u sameyno waxaa qasaba inaan soo furno project cusub balse hadda halkaas ma aadayno. ani mar hore ayaan soo samaystay overlay ahaan ayaan ugu soo darsanaya. haddii aad u baahan tahay qaabka loo sameeyo muuqaalkii ka horeeyay ayaan kaga soo hadlay halkaas ka soo daawo. overlay tag kadib soo qaado fine glass-kii marka aad soo qaadato waxaad la ekaysiinaysaa muuqaalka saa u jeedid muuqaalka lama eka xoogaa waa ay ka dheer tahay marka mana rabno inaan jarno. marka si aan muuqaalku la ekaysiino waxaan tagaynaa speed halka ay qoran tahay kadibna speed xoogaa ayaan ku furaynaa si ay muuqaalku la ekaato. overlay tag kadib soo qaado background-kan marka aad soo qaadato background muuqaalka la ekaysi cabirkiisa iska sax. marka intaad sameyso waxaad tagaysaa halka ay qoran tahay text kadibna waxaad qoraysaa sound effect music background iyo text animation-ka uu leeyahay. marka intaad sameyso mid walba waxaad dhigaysaa position kala duwan. qoraaladan cabirkooda yaysan isla ekaanin oo mid horeysi midna gadaal u dhigo. kadibna waxaad tagaysaa halka ay qoran tahay animation dhammaantood waxaad ku daraysaa animation-kan. markaad animation ku darto haddana waxaad tagaysaa halka ay qoran tahay templates qaybtan ayaad tagaysaa waxaadna ku daraysaa saddexdood qoraalba template-kan si oo marka uu soo baxayo si yaro professional oo qurux badan oo u soo baxo qoraalka. marka template-ka ku darto kadib cabirkooda sax si uu qaabkan ugu soo baxo. sound effects-ka music background-ska text animation-ka text animation-ka hoogaa hoos ayay jirtaa marka kor soo qaad. qaybtan u imaaw waxaad tagaysaa animation halka ay qoran tahay comba ka sii dooro kadib waxaad ku daraysaa animation-kan. markaad ku darto animation-ka qaybta kale u imaaw keyframe ku qabanaysaa keyframe koowaad waad ka fogaanaysaa muuqaalka jaritaankiisa halka uu ku egyahay ayaa tagaysaa keyframe-ka labaad keyframe-ka kale muuqaalka marka zoom soo dhexoogaa soo dhaweey muuqaalka. qaybtan kale soo koobi garay markaad soo koobi garayso waxaad tagaysaa halka ay qoran tahay overlay kadib muuqaalkii hoos ayaa ku imaanaya midkii ay koobi garaysay iyo soo dhig. marka midka hoos noo yaala remove background halka ay qoran tahay tag kadibna background ka tirtir. overlay tag kadib waxaad soo qaadanaysaa green screen-kan oo lacagta ah. marka muuqaalka la ekaysi markaad muuqaalka la ekaysiiso xoogaa zoom soo dheh waxaadna dhigaysaa halkan. si aan ugu tirtirno green screen-ka waxaad tagaynaa halka ay qoran tahay remove background kadibna qaybtan ka dooro calaamadan waxaa ku aadinaysaa qaybta green-ka kadibna tiradan xoogaa dheereey si uu green-ka ugu tirtirmo. si aan green screen-kan oo lacagta qofka hadlaya gadaashiisa aan u marsiino waxaad tagaynaa halka ay qoran tahay layer kadibna muuqaalka gadaalka marsii green screen-ka qaad. saa u jeedid waan sameynay lacagteena waxaan dhignay muuqaalka gadaashiisa. qaybtan u imaaw qaybtan dooro kadibna waxaad tagaysaa halka ay qoran tahay overlay waxaad ku soo darsanaysaa muuqaalkan. markaad ku soo darsato muuqaalka kale la ekaysi kadibna waxaad hoos dhigaysaa halkan kadibna qaybta dambe waad iska jaraysaa si uu cabirkiisa u leekaado muuqaalka. sida aad guuleystaa u noqotid muuqaal ayaa soo edit garaynaysaa muuqaalkaasi waxaa laga fiirin doonaa waxa ay tahay masaxan yahay marka uu leeyahay masaxan yahay mise uu qaldan yahay waxaan ku sameynaynaa keyframe ku qabanaynaa. keyframe-ka koowaad waad ka fogaanaysaa xoogaa keyframe-ka labaad marka muuqaalka zoom soo dheh waxaan u badinaysaa dhinacan oo dhinacan soo saar. markaasaan ku sameyso keyframe kale ku qabo
keyframe-ka kale hoogaa ka fogow isna zoom soo dheh dhinaca kale u eli oo midkan sidii aad u soo saartay u soo saar. musaxan yahay musuu qaldan yahay. Kadibna labada keyframe waxaad ku daraysaa garaafkan si uu marka uu soo baxayo si xoogaa qurux badan ugu soo baxo. Kadibna overlay tag waxaa soo qaadanaysaa labadan icon. Marka aad soo qaadato xoogaa kala dheeray mid calaamada khaladka gadaal u celi si aysan u soo wada bixin hal mar. Marka calaamadan xoogaa yaray kadibna position-kan dhig. Waxaad tagaysaa qaybta animation-ka waxaadna ku soo daraysaa animation-kan zoom in. Qaybtan iska soo jar kadibna waxaad u imaanaysaa animation-ka kale calaamada khaladka iyadan isla wadadii ayaa ku sameynaysaa xoogaa waad yareynaysaa kadibna waxaad dhigaysaa position-kan dhinacan kale marka uu baxayo. Kadibna qaybta animation ayaa dooranaysaa isla animation-kii aad ku daraysaa. Midana qaybtan ka soo jar oo inta jiran ee muuqaalka la ekaysiiyay iyadana. musaxan yahay musuu qaldan yahay. Qaybtan kale u imaa waxaad tagaysaa animation combo ka sii dooro waxaadna ku daraysaa animation-kan. Markaad midaan intaan ku samayso qaybta kale u imaa waxaad ku qabanaysaa keyframe koowaad waad ka fogaanaysaa. Keyframe-ka labaad zoom soo dheh muuqaalka xoogaana hoos u celi dhinacan u badi muuqaalka. Waxaan rabnaa dhinacan inaan ka soo muujino icon. Overlay tag kadib soo qaado icon-kan. Marka aad soo qaadato icon-ka si aan background-ka ku tirtirno remove background halka ay qoran tahay tag kadib qaybtan ka sii dooro. Markaad background-ka tirtirto xoogaa yaray gadaal u celi muuqaalka kadibna waxaad dhigaysaa position-kan. Markaad halkan dhigto muuqaalka la ekaysiiyay cabirkiisa kadibna keyframe ku qabo. Keyframe-ka koowaad dhinacan geli icon-ka. Keyframe koowaad ka fogow xoogaa midka labaad icon-ka soo saar kadibna position-kan dhig. Labadan keyframe waxaan ku daraynaa graph. Qaybta graph-ka tag kadib labadooda ku wada dar graph-kan. Marka inta sameyso qaybtan u soo laabo waayo wax idida kumaanan sameyn waan ka soo tagnay. Mar qaybtan waxaan ku soo darsan doonaa overlay. Add overlay tag kadibna waxaad soo qaadanaysaa overlay-gan muuqaalka la ekaysiiyay kadibna waxaad tagaysaa halka ay qoran tahay split qaybta filter-ka sii doono.